بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتشو قدوميها قولها شعب كبرلمان فدرالك الصومالية مدن محمد الشيخ عثمان جواري قدوميها أقل كالصريح مدن عبد حاشي عبد الله قدوميها كحقين ندى لبدا أقل رئيس وزراء الصومالية دمان bahda beesha caalamka mudanayaasha baarlamaanka labada aqal gudoomiyaha gobolka banaadir golaha garsoorka maamulka gobolka banaadir danjirayaasha iyo ciidamada amniga saxaafadda iyo dhammaan marti sharaf kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudane guddoomiyayaal mudanayaal iyo marweyn waxaa sharaf weyn oo ah inaan maanta ka soo qayb galno furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya anigoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa golayaasha baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ee nagu casumay madashan sharafta badan inaan ka soo qayb galno munaasabadda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya waxaan mahadcelin ballaaran u soo jeedinaynaa dhammaan golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo shacabka reer muqdisho anigoo ugu mahadcelinaya soo dhaweynta wada shaqaynta iyo walaaltinimada ay noo muujiyaan markasta oo aan hawlo shaqo u nimaadno magaalo madaxda Soomaaliya ee muqdisho dowladda Puntland ee Soomaaliya ee la dhisay 1998 ahna dowlad goboleed baarlamaani ah waxa axdigii lagu aasaasay iyo dastuurka hadda jiraba dhigaya in Puntland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya xilna uu ka saaran yahay hirgelinta dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan hab federaaliga ah sida uu qabo qodobka afraad ee dastuurka Puntland haddaba anagoo ka duulayna waajibaadka dastuuriga ah waxaan waqti badan iyo dadaal badan ku bixinay sidii loo heli lahaa qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaaliga ah ilaahay ayaa mahadle waynu nahaynaa waxaan maanta joognaa meel fiican oo aan hore uga sii mari socon karno taas oo ay markhaanti u tahay fadhigan oo ay ka muuqato wada shaqayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada federaaliga ah mudane madaxweyne mudane guddoomiyaal mudanayaal iyo marweyn dib u soo yeegleelidda qaran Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado badan oo xasaasi ah waxaase guul iyo sharaf noo ah inaan maanta ay noo dhammaystiran yihiin haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo taasoo aynu kaga baxnay shirarkii lagu qaban jiray dalka dabadiisa looguna gudbay in kulamada iyo dib u heshiisiinta aan ku qabsanno dalkeenna iyadoo ay hoggaaminayso dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ku boorinaynaa dowladda iyo shacabkaba in halkaa laga sii wado dadaalka iyo dib u soo heshiisiinta loo samaynayo dadka walaalaha ee Soomaaliyeed arrimaha dastuurku waa heshiis bulsho waana marjaca loola noqdo shaqo maamul oo kasta oo la qabanayo iyadoo aan laga hor imanayn shareecadda islaamka hase yeeshee waxaa lagama maarmaan ah in la helo dastuur dhammaystiran oo la isla ogol yahay isla markaasna waafaqsan dastuurka maamulada federaaliga ah ee Soomaaliya waxaan arrintaa lagu gaari karaa wada shaqayn iyo niyad wanaag waxaanu ballan qaadaynaa ka Puntland ahaan inaanu waajibaadkeeda dastuuriga ah ka qaadanno geedi socodka dib u eegista dastuurka federaalka ee Soomaaliya amnigu waa lafdhabarta dowladnimo sidaa awgeed waxaa laga maarmaan ah in aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanada dowlad goboleedyadu ka qaataan doorkooda xeer dejineed iyo dabagalka lana dadargeliyo wixii shuruuc ah
oo looga maarmi waayey shaqooyinka hay-adaha amniga ah si loo helo dal xasiloon oo ay u soo heloobi karaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku nool ama qaxooti ku ah waddanka dabadiisa gaar ahaan waddamada deriska ah garsoorka iyo cadaaladda arrimaha cadaaladdu waa waajibaad diiniya waxaana inoo ku xisaaran hay-adaha garsoorka sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay sinaan cadaalad bulsho oo ku dhisan shareecadda islaamka si uu muwaadin kasta xuquuqdiisa dastuuriga u helo haddaba annagoo aaminsan hay-adaha garsoorka ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedaduba ay ku shaqeeyaan duruufo adag oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha waxaan ku boorinaynaa inay muhiimadda siiyaan xil gaarana iska saaraan sidii shacabka Soomaaliyeed u heli lahaa garsoor iyo cadaalad hufan waxaanuna baarlamaanka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada u soo jeedinaynaa in dalka laga haqabtiro baahida qaanuuneed ee la xiriirta dhinaca garsoorka iyadoo markasta sal looga dhigayo shareecadda islaamka wadahadalka iyo dib u heshiisiinta Puntland waa qayb ka mid ah Soomaaliya waxayna soo dhaweynaysaa waddo toosan oo kasta oo loo marayo dib u heshiisiinta iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed hase yeeshee Puntland waxay leedahay dastuur dhammaystiran oo ku cad yihiin gobollada ay Puntland ka kooban tahay iyo xuduudaheeda sidoo uu qabo qodobka 7 ee dastuurka Puntland sidaas awgeed waxaanu soo jeedinaynaa in aanay dhicin wax wada hadal ah oo ay Puntland ka maqan tahay ama aanay dhinac ka ahayn oo khuseeya gobollada Puntland gaar ahaan gobolka Sool iyo Sanaag oo dowladda federaalku la gasho cid aan arrimahaas gobolladaas khuseyn waxaanu cadeynaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa xasiloonida midnimada Soomaaliya inay gobollada Sool iyo Sanaag ka mid yihiin dowladda Puntland ee Soomaaliya qaybna ka yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya wakiilada laga soo doortayna ay fadhiyaan labada gole ee hadda baarlamaanada Soomaaliya u fadhiya sidaas awgeed waxaan cambaaraynaynaa sheegashada iyo xadgudubka aan caqliga iyo cilmiga ku dhisnayn oo ay wadaan kuwa lidka ku ah qarannimada iyo midnimada Soomaaliya mahadcelin waxaan u mahadcelinaynaa kuna bogaadinaynaa qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya shaqada qaran ay hayaan gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo soo celinta maxaabiista Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka dabadiisa waxaanu ku boorinaynaa hawsha in la sii wado waxaan talagelin ku soo jeedinaynaa ka Puntland ahaan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal oo haddana hor fadhiya oo wakiilada ka ah Soomaaliya guud ahaan qaybaheeda in ay muuqato inoo fiican tahay in la helo xasilooni siyaasadeed waxa weeye inaynu jeensanno waxyaabaha dhabta ah oo dalkeenna wax ka qaban karaya waxa xantu tahay aan ku haynaa meelaha aan ka nimi baarlamaanadeedu inay ku mashquulsan yihiin arrimo dhexdeenna arrimahaasi waa arrimo dhaliil ah waa arrimo wax badan ka beddelaya baarlamaan wuxuu leeyahay 3 shaqo waad ogtihiin annaga waan ognahay dowlad goboleed baan ku nahay qarankii Soomaaliyeed baan ku metelaysaane dabagal baan leenahay xukuumadda in la dabagalo waxaanu leenahay matalaad shacabkeenu ka nimid inaynu metelno waxaynu leenahay inaynu qiimayno wax kasta oo dowladnimadeennu ku hagaagayso mudanayaal tala soo jeedintay waxa weeye waa mooshinno badan siinay mooshinnada yaraya dalkana u shaqeeya dhibaatadayna ka yareeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu